nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa maalmaha ka mid ah saxaabada dhexdeeda aayadda quraanka akhriyay yaa ayuha alladina aamanu quu anfusakum wa ahlikum naara kuwa nabiga rumeeyow kuwa diinta raacow kuwa aniga i raacow iimaanka laga helo naftiina iyo ehelkiina waxaad ka badbaadisaan naar buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas baa nabigu sallallahu alayhi wasallam ka sheekeeyay naarta iyo xanuunkeeda iyo dhibka ay leedahay كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إلهي منها نارتو شركة مركز أودنتو شركة لان كو بدلنا سيو حنون قرر دميان بإلهي مركز النبي صلى الله عليه وسلم يري أوقدت 1000 عام نارت آيات كل سنة للشديد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابيضت إلا آي كعداتي ثم أوقدت 1000 عام بالنبي صلى الله عليه وسلم وحال كل سنة وكلا حتى حمرت إلا أي كجذوذتي جذوذ كنغتي عسان ثم أوقدت 1000 عام كن سنة كلا أيال الشديد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اسودت إلا أي مذو قذعر نغتي فهي سوداء مظلمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن القذعر مبدئة لا يطفئ لهيبها من الدم بالنبي صلى الله عليه وسلم هلع نارته من الدم markaasaa mid ka mid ah saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa nafta ka baxday cabsid darteed uu ka cabsanay naarta fanazala jibriil baa imaaday markaasuu ku yiri waa ay adoonkan hortaada nafta kaga baxday markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam innahu rajulun min habasha waa mid ka mid ah ragga ka imaaday habasha markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu sidaa yiri jibriil ayaa u jawaabay nabiga wuxuu ku yiri maxamedow yaa maxamed abshirhu u bishaare إلهي يقول الله عز وجل إلهي وحليه لا تبكي عين عبد من مخافتي إلا أكثرت ضحكها في الجنة الأدون ماذا إذا كان إيش السوء أنا قدرت وما إلما يسعبسي أنا إيقا عبساني سوء إلا أكثرت وحام بديا جنة نحن هذا أيام قصرك هذا بديا أدونكو يبوه يسمع عبسي أنا إيقا عبساني وإلما إلما كتم حقه قبي عبسي أنا إيقا عبساني يسمع بس بهن وأنا أسكوك بهن أيو لعب صودا لو يسمع وحن أبلغ قاضي يا إلهي إليه جنة دحيدا إن قصل كيس بدي قصل كيس إلهي نجي لك وصل الله مركا قلبي أنا ألميو عنده هنا الميان وحكون أنت قلبي وإنه الاسم إيمانك وإنه الاسم ولما يقول الإيمان يزيد وينقص إيمانكم مرنا وزيادة مرنا ونسقامة إيمانك محوك زيادة محوسة كن نسقامة ما سويدي سولي إيمانك محوك زيادة خيرك بسطو دقيسك قرآنك لفردك علومات دقيس أخرسك قرآنك أخرسك الدين فردك علومات الله فردك ستمر البهبيني مال دينتو أو دقيس دينتو أسع بررتو كعمل فشو إيمانك هكو زيادة محوك نسقامة إيمانك محوك نسقامة معصدة دقيسك معصدة دعوشة معصدة la fadhiga dadka xunxunka arimahaana iimaanka ku nusqaam waxa marka aynu dhimanno waxa noo tareeyana walaalayaal waa iimaankeena weeyaan kuwa aliye nabiga rumeeyay waxa ay ku badbaadeen ay ku liibaanayaan waa maxay waa iimaankeena walaal biqadri iimaanina ayaan ilaahay ka cabsanaynaa biqadri iimaanina xaraanta iska deynayna biqadri iimaanina walaaltinimada iyo qaraabada xiriirinayna biqadri iimaanina lillahi nimadu inagu weynaanaysa inta iimaan aan leenahay baan ilaahay ka cabsanayn hala yaabin dadka maanta maxaa ka sii iimaanka hoos u dhacay barakallahu fiikum jazaakumullah iimaankeena inaan kordhino iimaankeena dhisno oo ugu weynaa la doonaya walaalahay saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam ta'alu nu'min bi rabbina saa'a bi oranjirin kaalay bal saacadan ilaahay rumayne Abdullah ibn Rawah hadalka oran jiray markaasay saxaabada kale inta caroodaan waxay ku jireen nabiga u tagaan rasuulka ilaahayow ya wuxuu maartay iimaankii dhamaa wuxuu ku soo qabay inaan saacado markaasuu rahimallahu ibn Rawaha innahu yuhibbu majalis al-iiman markaasuu nabigu u duceeyay ibn Rawaha ilaahay rahimallahu ibn Rawaha ilaahay ibn Rawaha u naxariista innahu yuhibbu majalis al-iiman wuxuu jecel yahay majaalista iimaanka meelaha iimaanku ku ziyaadayo iimaanku kor ugu kordhay khayrka meesha lagu hayo xadiiska ilaahay hadalka ilaahay meesha ka yeedhay hadalka rasuulka meesha lagu hayo iimaanka ku ziyaad si adeertay walaalayaal
qalbiga markii uu naftu ka baxayso waxa la qabanaya waa wadnaha saas uu qabanaya malku jibriil malku azraa'il malku mawt saab uu qabanaya qalbiga wixii ku weynaa qabiil haduu ku weynaa markuu naftu ka baxayso wuxuu leeyahay qabiilkay haday xooluhu ku weynaa xoolihi buu leeyahay haday madaxtinimadu ku weynaa madaxnimadu laakiin haduu ilaahay ku weynaa oo ilaahay u ka cabsoonay oo mar walba la kulanka ilaahay uu ku weynay oo mar walba ilaahay jalla wa ala uu rajaynayay marka uu u dambeeyay hadalkiisa maxaa u dambeynaysa la ilaha illa allah markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam man kana aakhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna ninka hadalkiisa u dambeeyso la ilaha illa allah jannadu gal marka walaal iimaankeena waa ziyaadinayna waan dhisayna maxaan ku dhisayna fadhiga dadka wanaagsan iyo culimada dhageysiga khayrka iyo muwaacida iyo muhaadarooyinka iyo bayaanaadka culimada dhageysiga maaragtay diinta ilaahay iyo quraanka barashada diinta fadhiga masjidka dhikriga ilaahay alladina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub sallallahu alayhi wasallam ilaahay jalla jalaluhu ilaahay baale الذين آمنوا كل الله ينقرهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله قلبي وضوحه كحصل يا با إلهي ليه ذكر إلهي ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا هو ياي بذكر الله حسك إلهي تطمئن القلوب أي قلبي وكحصل أكد والله حداد إلهي جل وعلا علاقة في عن ليالته وذكر جوته لا وجزء جوته القرآن ما أنت هذا آخره والله والول يسترس يدبريشن إن الدنيا أنت جوته أكيد توفيق الله نوافج تبت توصل يا توفيق الله نوصل إلهي دينتي على إنه معاني انت ير مال ما هير نول ما إيمان كان عندنا ولا بارك الله فيكم وجزاكم الله والسلام عليكم